waxa uu ahaa arday dhigtay iskuulka Wiilwaal ee magaalada Muqdisho gaar ahaan fasalka 7aad ee dugsiga dhexe. waxa uu lahaa mustaqbal wanaagsan. adduunyadu waa imtixaan aadanaha lagu saleeyay si qof kasta uu tusaalooyin dhaadheer ugu qaato. mushkiladu waa wax ku qoran, qof walbana waxa uu Alle u qoro ayuu la kulmaa. Saadaam Yuusuf Shariif waa 16 sano jir. 20 bishii hore ee Oktoobar ee sanadkii tagay ayaa isaga oo ka soo socda degmada Afgooye kuna soo jeeda magaalada Muqdisho rasaas ay fureen ciidamada dawladda ee jooga kontaroolka siinka dheer waxay kaga dhacday dhabarka. waxay u gudubtay oo ay hadda fadhidaa madaxa. waxa uu hadda ku jira isbitaalka Madiina. waxaa dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalka ay noo sheegeen in dalka gudihiisa aan wax loogu qaban karin maadaama xabadda meel halis ay kaga jirto, qalliin gudahana uusan waxba u tareen Saadaam. murugadu waa naxdin qofka bani'aadanka maalin soo food saarta, waa dhibaato iyo cariiri. qoyska Saadaam waa qoys danyar ah oo aan awoodin inay wiilkooda dalka dibadiisa u diraan si uu u helo caafimaad. lacagaha ay hadda kula tacaalayaan caafimaadka wiilkooda waxaa iska soo aruuriyay dad Soomaaliyeed oo ka damqaday xaaladda ay ku sugan yihiin qoyska iyo wiilka dhaawaca ah. hooyo Xamdi Cumar Guulwade oo ah hooyada dhashay Saadaam ayaa TV-ga Somali Cable u sharaxday xaaladda wiilkeeda uu hadda ku sugan yahay. ciyaal kale asaga isla socdeen Banooni ka imaadeen oo ciyaal isbalansadeen Afgooye. markuu ka yimid xabadiya waxay kaga dhacday dusha. ciyaalkii wadeen oo macnaha iska raaceen xaafadda isbitaal Madiina ii keeneen. markaan imaanayna meesha dhabarkay kaga taalay xabadda intuu isdhahay baawarka qaybta dambe oo fadhiyay. intuu isdhahay ka gambo waxay u fadhiisatay madaxa dhexdiisa hadda kaga jirtaa. isbitaal Madiina waxaan ku hayaa 20 Oktoobar ilaa iyo hadda aan isbitaal Madiina ku dhex jirnaa. 4 bilood aan isbitaal Madiina joognaa. marka dhaqaale oo hadda aan cunugan oo hadda aan ku baxnaaniyana ma haysanin. dad muslimiin aan dadkii soo gurmanayay isbitaalka imaanayeen waxayna siiyaan ilaa ay halahan aan ku soo bixinayay. aan ku soo bixiyay daawadiisa iyo wixiisa. alxamdulillah dhaqaatiirta oo isbitaal Madiina ayagana way igu caawiyeen oo maxay ahaayeen wax oo problem ay geliyeen ma lahan. ilaa ay hadda doctorka neerfaha Maxamed Yuusuf dhaqaatiirta isbitaalka wada joogto ayagana waxaan leeyahay khayr badan Allah siiyo. anigana hadda wiilkii madaxa waxa la yiri xabadda ku jirta anaga waxba kama qaban karno. dibadda ma ahe dalka wax loogama qaban karo. samirku waa hubka qarsoon oo ku qasba dhagartu in ay ismuujiso iyada qudheeda. qof walbana waxaa waajib ku ah inuu samro dhib walba oo soo gaara. hooyo Xamdi Cumar Guulwade wiilkeeda Saadaam waxay mar walba ku dhiirigelisaa inuu dulqaad muujiyo mar uuna uu ka kici doono dhibka soo gaaray. waxayna madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya, madaxda gobolka Banaadir iyo dhammaan ummadda muslimiinta ka codsatay in wiilkeeda wax loo qabto oo caafimaad dibadda ah loo diro. madaxweyne, gudoomiyaha baarlamaanka, gudoomiyaha gobolka waxaa idinka codsanaa qof macnaha hadda meel dheer gaari karto awood u haysa ma aha qof oo wiilkeeda wadan kartana ma ihi. cunugiina isbitaalka 3 bil iga yaalaa cid ii maqana ma laha. waxaan rabaa inaa cunugaas wax igu qabatiin. madaxay xabadda kaga jirtaa. raajada xataa waatan gacmihii aan ku hayaa. haddaan tusinaa wiilasha raajada meeshay kaga jirto. meel khatar ah kaga jirtaa xabadda. waa u jeedinaa maleena meeshay xabadda kaga jirto. kala waatan meeshaas ay u dhax fadhisaa xabadda. kana waa garabkiisii oo kala baxsan. sidoo kale hooyo Xamdi waxay sheegtay inaysan hadda haysan lacag ay wiilkeeda isbitaalka uu sii hayso maadaama ay yihiin qoys danyar ah oo aan maareyn karin nolosha wiilkooda, iska badaayay inay caafimaad dibadda ah u diraan. waxay ummadda muslimiinta ka codsatay inay ku taageeraan wax walba oo ay awoodaan. xaaladaha dunida iyo duruufuhu waa kuwa aad u kala duwan. dadna baahi iyo diihaal ayaa daashaday oo waa kuwa dalanbaabi dhacaya. qaar kalena isbitaalada dalka ayay xaalado caafimaad daro, daryeel la'aan
iyo sidoo kale daruufo gaara ku haystaan oo kumanaan dollar oo ay bulshada Soomaaliyeed iska aruuriyeen noloshooda halis ugu jirta kuwana daaraha ay ku jiraan ayay cunto diihan ka soo daadiyaan oo waa kuwa dharag la daalacoonaya laakiin cidna daalac loo raacan maayo oo deeqda Allah ayaa bixiya ciduu doonana siiya ciduu doonana u diida dabcan waa iska xal adduun Axmed Cabdi Cali Somali Cable TV magaalada Muqdisho